Somaliland iyagu waxay yidhahdeen waanu ka quusanay waxan marka waanu soconay safarkaasaanu galnay hal isku duceeyo hadday leeyihiin dembi baa Hargeysa iyo Burco iyo meelaha kale la burburiyay dembi baa laga galay dembigii waa in la soo xiraa de qof caadi oo jawhar jooga muu sameyn dembigaas dawlad iyo military qabyaaladaysan baa samaysay ya waa laga bogsiin karaa Somaliland maaha qayb yar oo kamid ah Soomaaliya maaha waa waxyaabaha adigu taa uma jeedin laakiin waa waxyaabaha sheekada xamar ay ku meeraysato iyo meelaha kale ee koonfureed Soomaali baan nahay diin baan wada leenahay islaama afaynu ku wada hadlaa qabaynu ku wada nahay waa in meel qura la iskugu tagaa Somaliland waxa weeyi wadan xor ahaa oo gartay xornimadiisii inuu keeno Muqdisho ilaa walaalahoogii kale ee Soomaaliya Italian Soomaaliya deganaa aynu labada wadan isku darno maha xubnuhu waa waxa imika la sii sarrafay ee Jubaland iyo Puntland iyo Maxayland iyo waxa la yidhaahdo runta wanaagsan tani way qoran tahay taariikhdeedu waxa weeyaan abtirsiinteen waxa laga yaabaa inay kala duwan tahay Soomaalidu markay xadkii jamhuuriyadda eegaan ayay moodayaan inay hiiraan iyo Hargeysa kala fog yihiin laakiin marka sida u soo jeexdid ee dhulka Soomaalidu ay degaan Itoobiya had martid iyaka ayaa iskaga dhow Boosaaso iyo Beledweyne waxa iskaga dhow Hargeysa iyo Beledweyne baa iskaga dhow marka eegto khariidada marka inaan dadku kala fogeen baad kow ra'iisul wasaare Somaliland oo kartile in degdeg u magacawdo haddii de wadankan la wada leeyahay de saada maad garan ee aanad noqon oran de haddii hawiyihi baa imaka de noqday madaxweynihii kolka de nimankii daarood waa in la raadiyaa in ra'iisul wasaare noqdaan waa shaqadii waxaasi maxaan ku raahno soo aragnay inuu kama tagno way diintiina waa in la isku hayaa islaamnimadii iyo Soomaalinimadina waa in la isku hayaa soo aad garmis laba wadan oo midna British Somaliland orange midna Italian Somaliland orange bahay soo aad garmis hore ya de Soomaalinimada gabowday hore ma ogidee la wada deganaa ma og laakiin laba wadan oo isku jiray ma ahayn xadadkan la in kala dhexdhigaya maxay keeni doonaan baan ku nidhi qadiyada Somaliland sida loo fahmayo in farsamadeedii imika la keeno soo degamis cid dhageysataan waa ma ogoshahay dawlad inaynu noqono qayrkeen waan ka hadnaye in gaarsiiso meel qayrkeen Itoobiya iyo Kenya iyo adduunyada kale caruurteenu hay la tartamaan in caruurteena yakh looranoo laga khashifin oo qandoof lagu tufin ma rabtaa adiga markaad meelay waa maraysid in lagu ixtiraamo ma rabtaa aniga cade imay kaxayn aniga waxay kaxeeyay waxa la yiraahdo yaa yakhsi kalmada yaa yakhsiga waan filayaa inaad garanayso aad ku labooto soo aad garanayso oo aanad liqi karin yaa yakhsi cadadu af Ingiriisiga waa anger wad caroonta ka waxa weeyi nusa saacad dabadeed bay cadadu baabays yaa yakhsigu waxa weeyi wixii calooshaada dhan ku jiray ayaa dibadda u soo baxay dibna cunto dambe la mid ah ma liqi kartid aniga yaa yakhsi discuss baa la yiraahdaa Ingiriisiga ayaan ku soo arkay maantana taagan haddaynu Soomaali nahay abtirsiin kala duwanna waan leenahay oo marka dambe meel iskugu soo wada biyo shubanaysa dhaqan islaamnimo iyo Soomaalinimona waan leenahay leadershipka iyo hoggaanka ya in kubadda meel cusub oo sare laga ciyaaro Somaliland maanta waqtigeegii baa yimid soo hada garmis oo la sii dadaalo marka waxyaabahana inaan intay kartida ay tahay aan runta ka sheego iyagana runta aan u sheego oo haddii aanay waxa ka faa'iideysan oo ku soo noqoto bulaacadii Muqdisho ka dhacaysa ku tulamidii ay ku soo noqoto iyaguna marka way hafan doonaan waxa yar ay qabsadeen oo kala daadan marka dibadda waa la isnici waxaan u baahanahay dawlad federaal ama centralized adigu doonaysid dooraanaku jawaabta dadka leh waxa weeye mid sharaftii qarannimo ilaalisa oo awoodeedii la markay adduunyada la xaajoonayso oo la barbar ordin oo mid intuu ka yimaado Hargeysa ama Baydhabo ama Boosaaso ka yimaado anna waa kana waan hayto ilaah ee qof qura iyo baarlamaan qura han isugu geysano maanta waxa la igu leeyahay warka la soo siinayo dadka xamarka jooga ay soo siinayaan waxay ku leeyihiin qabyaaladu maanta ka xunta corruptionku maanta ka xun soo aad garmis dadnimadu maanta ka xunta waxaana waxa keenay dawladda cusub ee Xasan Sheekh madaxda ka yahay ay dadkii ku leeyihiin soo aad garmis war weyn ayaa dadkii hay kuwa goboladuna ama Puntland ha joogaan ama Baydhabo laan ha joogaan ama Kismaayo laan ha joogaan ama Hargeysa laan ha joogaan yaa ma kamay shaqayn in lagu barto dadka si toosan oo siman oo xalaala inay u simaan marka xurguf baa ka wada hooseysa waxayna u wada tartamayaan ma aha shirkan sidii aayahan dantan Soomaalida looga shaqayn lahaa waxa weeye inta sida loo jaangoynayo inuu xaqayga inta u jarjeersamo anigu han kaga soo baxo meesha halka la iska hirdiyay biyaha hoostooda waa taas weeye
سؤال تالا اللي يسويدين الحمر اللي يسوي دين وحوي سمتر محاك وكلفي والقف صدق سنوات أرمها الصومالي ذا حج دعي إنه مالين قرص ذا وقد دقاقه محاك وكلفي ويسويش تالا اسمه ويدي إلا ما أنت نعيد ويديس ماله أنا وحنا أما أحمد سمتر ولا الله هذا أما حليم عبد الله هنا وضد شو حق بانو له ودن كان قيبته إذا كان قاعد سمعت قرن أحمد مركز هدو قوستي إنه حاجة هي أنا يا إسقى أو ولا تني ماذا يضو هي حالات هون للنسوق على دحمر كريم صاحب تني ماذا يضو هي دبت هاي لكن الصومال واحد وقعت ما أنت هلك الجوجي ما أنت هلك الجوجنا سياسة ضينا أن نسوق خلد مكري شغاسكم ملي لكن سوى حن رجينا يا هدو ماشات هجي وحنا أحسن ماشي إنه ككان إن ماشن جوجو oo fursad isiisay in Soomaali daafaco intii Itaalkayga u malayn maayo in la igu dhalilayo Soomaad garan markii xamar la garaacay Itoobiya garaacay u malayn maayo in qof iga qayladaan dheera oo Soomaali inuu jiro dadkayga inaan difaaco haddana anigu rasaasreen qori baan ridi karaa qalin baan ridi karaa Sooma inaan ku difaaco taas markhaatina waxa ka in wadamo kala gooniye ay yihiin de xidigtan dhexdeedu shan gees bay leedahay جيس غوري يلان لهي سؤال قرمي شن جيس بيلاده شنتي جيس صدح يا وكوايس كتجي سؤال قرمي إثيوبيا محن كوريا كل كيس شنات ساس يكون دقائق ما أنت كينيا يدي هنا في ديدن بمجر تو ساس يكون دقائق جيبوتي نديوات هالصعوتة وضن كان نقطة الجمهورية الجوني ده سؤال قرمي سومالي لان حق بي مركا أولاده لما ذا جيس الصهري هدي لجرن ويدي أو نقطة إن أنا دني أوجرين oo ay noqotay xukuumadii intay xamar ku soo ururto in inta kale nuugto ya ay aragtay xaq bay u leeyihiin taariikhduna xaq bay u siinaysaa inay yiraahaan annaguna geeskii afraad haddaanu nahay waanu ka baxnay waxa weeye haddaad ka soo bilowdid intaan Soomaalida isticmaalku qabsan xadadkeenu maxay hayeen in kala dhex yaal haday jireen khariidad baa jirta dadkan la wadaagi doono dhawaan ya oo tusaysa intuna Talyaaniga iyo isticmaal Ingiriiska iyo Xamaarka iyo Faransiiska iyo Ingiriiska halkan Kenya intuna iman dhulka Soomaalidu wuxuu ahaa xad in kala dhex yaalay oo oranaya gabadh yahay hay soo dhaafin reerkayga halkan dagay waxadkayga waa halkaas ma ayan jirin sohdimo ma lahayn calankaana waxaan u qaadanay annagoo ay nala tahay inuu beenoobay calankaas ugu beenoobay isticmaalka shan inoo qaybiyay hargeysiyo wixii la mid ahaa meel bay mareen Djibouti meel bay martay jigjiga iyo dirraba meel bay mareen NFD meel bay martay muqdishona meel bay martay waa la soo dadaalo Soomaali baa ka dadaashay in xadadka aynu iska dhex qaadno laba ku guuleystay ahdi bay saxeexdeen ahdigaasi inay dimuqraadiyad midaysan noqotaan ahdigii waa la jabiyay military baa yimid markaas dadkii garaacay ya Soomaad garan military baa yimiday sideedii gobol ee dawladihii rayidka ahaayeen ayaa la yiri odayaal baa u yimaada Maxamed Siyaad Barre Allah u naxariiste odayaashii gobolkan hadaan nahay waxaan rabnaa gobol baan rabnaa waa la siiyay sideedii gobol ayaa koronkorooyin dhalay 18 koronkoro ayuu noqday taanaku waxaanu nahay dad qable ayaan hadaan reer Soomaaliland qab baanu leenahay waxaanu nahay dadkii ugu horeeyay gobonimo qaata ayaanu nahay waanu isku kalsoonahay qabaa'ilkiiba masaakiina dadka caadiga waa kuwa kale annagu xaasuman rabnaa siyaasiyiinta intay macangag boobaan ayay doonayaan inay iyagu isku diraan si dadkii ay uga soo horbaxaan iyagu markaa ay meesha u fadhiyaan aniga hunguri dambe oo igaga jira siyaasadda Muqdisho ma jiro macnaheedu ma ahayn reer waqooyi la dhaco macnaheeduna ma ahayn koonfur la dhaco waxa weeyaan walaalahay hargeysa ka yimaadaan boosaasaha ka yimaadaan galbeed ha ka yimaadaan kismaayaha iyo ha ka yimaadaan raas kaamboni qof walba Soomaali wax xaqiisa iyo xaqiiga inta helo han wada guuleysano oo qoorta intan sidii waagi hore aan jirnay han ka sareyno ayaan rabaa yaa isiya fursad reer waqooyi han ku fadhiisto dood kala qayb karo deegaanka ma tagi kartid